Soomaaliya waxay caan ku tahay wax soo saarka beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha, waxaana lagu qiyaasaa dhul beereedka Soomaaliya ee leh wax soo saarka dalagyada kala duwan 1,000,000 hektar, kaasoo dhiirigelinaya ardayda ka soo qalinjebisa jaamacadaha dalka ee u dabaaldega farxadda maalinta ay ka aflaxeen waxbarashada. Inta badan ardaydaasi dabaaldega waxbarashadooda kadib ma helaan shaqooyinkii ay u baahnaayeen, balse waxaa jira qaar kooban oo ku fikira inay shaqo abuur naftooda u sameeyaan. Warbixinta soo socota waxaan ku eegaynaa jiilka maanta oo fahmay ahmiyadda ay leedahay in bulshada looga faa'iideeyo wax soo saarka beeraha. Xasan Xuseen Maxamed waa arday bartay kulliyadda beeraha, wuxuu magaalada Muqdisho ka hirgeliyay shirkad yar oo ka shaqeysa tacabka beeraha iyo nafaqeyntooda. Magacaygu waa Xasan Xuseen Maxamed, waxaan ka mid ahay ardayda baratay kulliyadda beeraha. Sidoo kale waxaan ka mid ahay aasaasyaasha iyo mulkiilayaasha shirkadda Udgoon Agricultural Service. waxaa ka mid ah in markii qofka arday uu yahay uu soo qalin jabiyo fresh uu yahay, sida caadiga ah qofka waa job seeker ama shaqo raadinaya. sida wada ognahayna shaqada in la helo wadankan aad ay u adag tahay. baahiyahaas oo jira ayaa waxaa inta shaqo aad raadin lahayd bedelkeeda ahow yani qof oo dadka shaqaaleysiyo adigana shaqo abuuro. alxamdulillah fikradeedii waxay noqotay fikrad guuleysatay oo maanta dad ka mid ah ardayda soo qalin jabisay oo jaamacadaha way la shaqeeyaan. anigana waxaan ahay qof maanta asaga iyo nafsadiisa macnaha iska faalo qaaday oo ku tirsan waxyaaluhu soo bartay inuu wax ka soo saaro, bulshadiisana uga faa'iideeyo wax soo saarkii bulshada wax quality leh. qof wax soo bartay aan ahay wax quality leh ay helaan. Degmada Daynila ayuu ka hirgeliyay beer casri ah oo ay ku beeran yihiin dhowr nooc oo qudaar ah. Haddaba maxay ku soo kordhisay bulshada, muxuuse caqabad kala kulmay? dabcan caqabado way jiri karaan. tusaale ahaan markaa wax aasaasayso waxyaalaha qofka markuu wax aasaasayo kufaakac badan iska jiro, markood waxaa laga yaabaa inaad yani investment ma fiican aad heli weyso oo bangi markaa u tagto lagu yiraahdo mataqaanaa ba yani shuruudihii qaar soo buuxin wayso oo waxyaalahaas criteria ay kugu adkaato. caqabadaha jiro waxaa kaloo ka mid ah yani waxyaalaha soo saareynay waxay ahaayeen waxyaalo oo niyo ah, ma ahayn wixii hore loo soo saari jiray. dadka haddii ay aqaanin yani yaanyo caadi in la soo saaro, anaga waxaa soo saarnay yaanyo ka duwan, waxyaalo badan oo macnaha ka duwan. markii koobaad aan soo saareen caqabadaha qabsa ka mid ah marketing ama suuq inaan u helno wixii, laakiin alxamdulillah dadaal badan kadib dadkii way barteen. maantana wixii aad loo bartay dad badanna way kusoo biirayaan inay yani wixii anaga camal u soo saaraan. Xasan wuxuu ardayda dhiggiisa ee ka aflaxday jaamacadaha magaalada kula dardaarmay inay shaqo abuur sameystaan. ardayda waxaan kula talin lahaa dalkaaga waa dal barwaaqo ah, aad iyo aad u dhul beereedkiisa u ballaaran yahay. beeraha markii la waa fille aad u ballaaran. waxaad ka baran kartaa tusaale ahaan wax la modern farming ka baran kartaa, gardens ka baran kartaa in jardiimada iyo waxaan landscaping ka sameyso. marka waxaan dhihi lahaa in qof beero bartay inuu maanta uu job seeker noqdo ama shaqo uu raadiyo maba kula talin lahayn in dhulkiisa kala duwan sida hadda tijaabo la sameeyeen dhulka Soomaaliya meelo qaar hadda waxba kama bixi karaan dhig jira hataa wax way ka baxaan, sida gobolada dhex dhamaan wax way ka baxaan. marka in dadka shaqo tagaan oo dhulkooda ay beertaan si isku filnaansho dalka u gaaraan kula talin lahaa. Xasan iyo qaar kale oo isaga la mid ah waxay fureen wada kale, waana greenhouse-kan wuxuu fursad shaqo iyo nacfi u noqday dad badan oo ka hela dhaqaalo iyo cunno. Milka Cabdiraxiin, Bila TV, magaalada Muqdisho.